wixii ka jira Ariel usoo tabiya bulshada xogtu ku ururiya Ariel amuraha ganacsigana Ariel nagada Ariel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج جاره أو إذا كي من أياه مقالة شفيل عرقة ودن كإنجليزكا. وح برنامج كان نوجو مرتيح نور الهادي علي بنفس. وضد كأنتو ده بدني أي سوى على جرانيان قبل اللي يراه ورنتي وح آدي آد مهم وقوتي دل كذا يدد كذا. وصور قاده soo martay guud ahaan Soomaaliland waxaan u maleynayaa inta ay xaq dhigtay ayaa ka badan inta aanay dhigin haddaanay dalka way soo marin noora ku soo dhaw marka hore telefishinka Ariel aad iyo aad baad u mahadsantahay Yaasiin Jees waxaan ku faraxsanahay inaan idinla joogo aan joogo magaalada Sheffield oo runtii ah magaalo saaxiib dhow u ah Soomaaliland وانا ماليه runtii aqoonsiga Somaliland ku dhawaaqay iyagoo la garab istaagay dadka reer Somaliland taageerada ay u hayaan in Somaliland ahaato wadan ka madax banaan intii kale ee Soomaalida taasi Somaliland ahayd 30 sanadood dawlad madax banaan oo ka go'day Soomaaliya wixii la isku oran jiray la sameeyay 1960kii June marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha Sheffield uu ka duwanaa imaanshaha meelaha kale ee Ingiriiska oo dhan waxaad iga warantaa socdaalkaaga ku timi Ingiriiska sida dad badan ka warqabaan de wuxuu ku tacalluqay Somali Week Festival bal ka waran hawshaas iyo sidii ku dhacday iyo kadib markii uu dhamaaday goobaha kala soo martay sidaan ku nimid dalka Ingiriiska waxaan soo galay habeenkii 18 Oktoobar 2022 waxaanu markaa kaga soo baxnay Hargeysa koox ku soo waajahan dhamaantayo Somali Week Festival oo ay soo qaban qaabiyeen Kite Somali Arts ay hogaamiyo tahay ayaan cashuur marka sababtan runtii annaga naloo soo qaatay doorkan waxay ahayd in la tuso barnaamijka Somali Week doorkan inuu casuumay dad dhalinyaro ah oo ka yimid Somaliland way inta badan waxa hore u iman jiray dad waaweyn oo abwaana u badan laakiin doorkan in waxa la yiraahdo visual arts ama farshaxanka doorkan uu ka soo qayb galo saasan anigu ku imid qoraayo kalena ay ku yimaadeen da'yar marka si fiican buu barnaamijku noogu qabsoomay barnaamijku wuxuu socday 22 Oktoobar ilaa iyo 30 Oktoobar 30 ay soo gabagaboobay marka runtii wuxuu ahaa barnaamij kulmiyay dad badan oo Geeska Afrika ka yimid ama Soomaalida Geeska Afrika oo dhan waxa joogay qolo ka timi Djibouti matalaysay Djibouti fanaanka weyn caanka Cawaale Aadan waxa joogay qolo ka yimid Soomaalida Ethiopia gabadh aqoon-yahan oo la yiraahdo Fawzi Cabdiqaadir iyo waxa jooga Cali Daanto dhanka kale ee Muqdisho waxa ka yimid fanaanka weyn abwaanka Magxaaji Banaadir xagayga Hargeysa Maxamed Xasan Cali Waji Ikraan Jaamac iyo Cabdicasiis Gudacade oo qoraa ah tarjumaana ah marka doorkan dadkaas la soo xulay oo isku jirteen si fiican waan isku jirnay dhalinyaro waayeel marka doorka dadka iyaga la soo xulay waxa runtii fursad anagana noo ahayd inaan dadka qurbaha ku nool gaar ahaan Ingiriiska joogo la kulanno waxaanu qabanaa tusno soo bandhigno iyo in iyaga laftirkooduna ay anaga fursad noo helaan u ogaadaanna waxaanu ka qabanayno dhulkii iyo dalkay ka yimaadeen marka barnaamijkaasi sidaas uu noogu soo dhamaaday nuura intaynaan u gelin hawlaha qabato iyo barnaamijka mucdiisa waxaan doonayaa Ingiriiska waa markii horeysa timaado Soomaaliya bal waxaad ka warantaa markaad halkan timi waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad Ingiriiska la kulantay waxa runtii iyaab galiyay aniga taariikhda sida wiilashada wadanka Ingiriiska oo taariikh fog leh
dhismayaal aad u qadiima leh marka loo eego Yurubta kale waana dad taariikhdooda awoodda saara waxyaalahan aadka u jeclaystay waxaa ka mid ah waxyaalaha ugu fudud ee dadka bini'aadamka isticmaalaan oo ah caagada biyaha lagu shubo in dukaanka sameeyey ama shirkadda samaysay ay raaciyeen marka qoraalka ah waqtigii uu soo baxay marka maalin baan soo dhigay Facebooka 1715 waxa weeyaan 1517 qoliyo biyaha ilaa waqtigaas soo saarayay ama shirkadda waqtigii la asaasay marka runtii waxay qiiro gelisay waxay ahayd in xilligii ay soo saareen iyo taariikhdoodii ay ku mudeeyeen wax kasto gidaar kasta haddaad eegtana waqtigiisi baa ku mudeysan waana inta badan ku dadaalo markaan dalkii joogo inaan dhawo taariikhda inoo ilaaliya taariikhda dadkeenu inay macno u yeelato waxa jirta kutirkuteen la sameeyay oo dadka qaar aamineen inay run loo qaatay markii dambe oo ah Soomaalidu waa oral society ama dadka Soomaalidu waa dad hadal la uun marka balha in fikradda laynagu socodsiiyay balina joojiyo shaabada in iska fajino no Soomaalidu dad hadla uun maahe Soomaalidu waa dad qorta Soomaalidu waa dad wax kaydsada marka runtii waxyaalaha aadkii cajabiyay ka mid tahay magaalada London oo runtii magaalo adduunka la isaga yimido magaalo qaxoontiyada ka farbateen waxyaalihi ugu yaabka badnaa waxay ahayd London markaan dhex joogo street kasta oo maro luqadda af Ingiriiska inta lagu hadlayo waxa ka badan inta luqadaha kale lagu hadlayo yani ummadda oo dhan baa joogta ummadda oo dhan baa isugu timid marka waxay ku tusaysaa magaalo dunidii oo dhan isugu timidnato local languages ay dadka jooga London ku wada hadlayaan mar bay aan arkaa dad af Ingiriisi ku hadlayo dalka u dhashay iyo dabcan nolosha sida u horumarsadeen qaabka tareenada u shaqeeyaan oo anigu waxa kaliya ka jeclaysta London way gaari hadda London ku dhex kaxayso maanta dhan kama gayoonaysid haddaad tiraahdo bariga London iyo galbeedka London uu kala socdo waa qof Hargeysa iyo Booramo u kala socda marka tareenada aan aad u jeclaysto siday fast u yihiin ama u degdegaan waa shayga kaliya London ka helo isticmaalo inta ugu badan waa dad xoodi nidaamsaday dadkuna sharciga ka baqdaan halka anaga dalkii dadku waxaad moodaa in dagaaladii wixii dadkii ay soo mareen dadku aanay sharciga diidaan inay hoggaansamaan ama mararka qaarkood yara dhayalsadaan oo aan doono in la yara dhaafo halkan laakiin waxyaalaha ugu fanisan waxa weeyaan adoo laamida iska maray gaarigu socdo ayaa shanqadha kamarada dareemaysa qofku booranaya kamarad bay ku dhacday marka dadka London ku nool waxay ka wada baqayaan speedka kale inay kamaraduhu qabanayaan iyo garaaxa dhow soo dhacaya marka waa wadan runtii horumarku uu ka gaaray inaan dadku wada hadalba laakiin inuu systemku kula hadlayo oo dukaamada qaar marka gasho adeeganaya wada ka idinku adeegta qofku markaas system buu la shaqeynaya kamana baydi karo hadduu ka baydhna ganaax baa saaran ayuu ka baqaya marka runtii waxyaalahaas aad ii cajabiyay ama aan runtii la yaabay speed limitkaas oo kale dukaamada iyagu iska kaa iibinaya systemku wax kaa iibinaya marka waa dhul laga maarmay wada hadalkii oo aamusni baa lagu kala adeeganaya xagga weatherka waran iyo cimilada wallahi dadkeenu xaggii joogay dhalinyarada khaasatan dadka iyaga jecel qurbaha xoog u jecel moodaya qurbaha in janna naga soo xigto runtii waxa yaalaha ugu badan ee ka warqabin waxa kamida cimilada waqtiga winterka la yiraahdo xilligan imkaan ku jirno oo qabow xataa fi jiro roob jiro dadku katabaan noqdeen sidii katabaanka guryaha la soo dharka la soo jiray dadkii qof walba uu rasaysan yahay moogto karbaash dadka tiilooyinka meelaha tago dumarku waa kuwa isku tola dharka marka inta saa u dhigaan sida miiskaas u yaalo ayaa maanta dhan tolayaan oo kolba dhar bay halka soo ururaysa mid kale keenaysa mid bay ku sii dul marka waa waxaan af Ingiriisiga ugu yeeran layers marka waxa kon layers miran waa inaad sidii funaanad hoosta ka xidho tu kala sii gasho marka waxyaalaha aanay ka warqabin dalkii joogay in nimcadii runtii jawiga kale war aanan u haynin
cadceedda labada duhurnimo iska dhacaysa galinka dambe ama casarka dhacaysa habeenkii saddexdii galabnimo ka soo bilaabmayo saddexda iyo konton baan ka maqrib galay ayaa maqribkii la tukanaya marka halkaas ka soo bilaabmaysa marka maalmo dhowdan la hadlayay xaafadii baan lahaa war meeshan habeen iyo maalin weeyaan maalintuna waa subax hore labada saacadood oo horeeya inta kale habeen baa lagu jiraa dalkiina de waxaan lahayn subax waxaanu lahayn duhur casar fiid iyo habeen marka wixii ba ma jiraan arinta ka waran ilaa xagga waa runtaa waa quraacan jirteen oo hadana qadayn jirteen oo hadana cashayn jirteen casariyeyn halkan de waxa casariyeyntii ha halka laakiin waxa ma jiraan halkan waxa weeye waa ama sida reer galbeed qolyaha reer galbeedka ah Hargeysa wixii ka galbeeday waxa cuwaaf casarkii waxa la cuno wixii ma jiraan halkan hal cunto mad maalinta cunayso qadadiya marka qaarkiyo naga miday waxaan kala garan weyn marka dadku yiraahdaan xilqadaha inoo haato marka xilqadaha UK meel uu yahay baad garan waaysaa ma shanta galabnimo waa qof walba xilligu qadeeya waa xilligu isagu de marka ku haboon marka tusaale ahaan anagoo u baranay 12kii barka duhurnimo ilaa 1kii barka xilligan way qadada labada duhurnimo digaadha qadadii way dhaaftay xageeyay laakiin xagan 3 galabnimo 5 galabnimo 6 marmarka lagu qoray qof kale soo qadaynay sababna ku dhacday xilligan anagu xilligan qadayn jirna ma aha waa sidii marka isbedel cimilada wuxuu saameynaya xitaa qaabka cunto qaadashada oo cimilada taa dadku badankoodu deewaana ka warqabaan waana arrinta kala duwanaanshaha markiiba uu qofku dareemi karo arrinta kale sharciga ee aad runtii iyadana aad aragtay sharciga sida looga dambaynayo waxaa laga yaabaa adigu maadaama qoraana tahay artistna aad tahay inaad wadankii markaa tagto dee aad wax badan fariimo badan dhalinyaro badan aad gudbin doonto insha Allah taala waxaynu u geli doonaa hawlahan aad qabato Nuur Alhaadi waxaad caan ku tahay sawir qaade waliba aasaarta iyo waxyaabaha xadaaradda ee dalku leeyahay inaad si wacan u sawirto buugaag ku soo maartay ururiso soo bandhigto sidoo kale goobaha dalxiiska loo tago waxyaabaha soo dhani waxay keenayaan in dadka ajaanibka ah ee wadamada kale inay soo jiitaan oo quruxdii dalkaas iyo meelahoodii taariikhiga ahayd iyo meelahoodii quruxda badnaa la tagi karay marka la arko de waa la imanaya waana sidoo kale buugaaga ku cado dee dad badan soo jiitay sidaad ii sheegtayba dee waftiyada xitaa dee caalamka lagu dee maamuuso si ay Soomaaliland wax badan uga ogaadaan dabcan arrintan maxaa marka hore horta kugu dhaliyay niyo wallahi anagu markii hore kama fikirayn ba halkii maanta aan soo gaaray waxa jirta wax yar oo wadiiqa yar kugu rida tuweyn ad qabsato waxaan sidan mar walba ku soo celceliyo galaan xarsaabaha Ali Ban Faspa sawir qaadana waha painterna waha waxaan marka qaar waxaan dhahdaa waxaan dhahdaa qof artist dhammaystiran buu ahaa gabiya muxuu ahaa matala كوس أكتر نوها روايات شري ومثلي مركو إنك يراها مركا إسقى هيسين شري كاميرا دير حلقي أنا نجو دالنا يحلي كان سوكريني مركا إسقى حس صورين أركي شري مركا حوج من دنين شري مركا حوجا يروي نادين سكول كجلاي وحن دنيي إن أنا بالنوش يرى أنت يقولوا أصحابتي ذكوري وحى صورة ونسراب أنت كراب نحسوس كراب marka safar mar iska galay hadana safar kale ku xigay Facebook oo marka ku cusbaa waxaan ka hadlaynaa 12 sanadood ka hor 2011 ayaan ku soo share garay soo dhigay marka dad qurbaha joogay ba jeclaystay inay arkaan muuqaal dalkii kamida marka siguna markastood meel yar tagto halka noogu soo dhig dhiirigelintaas waxay keentay inaan ku dhiirado nisraado meeshan marka xilliga waxaan bartay criminal justice and police marka organization xuquuqda aadamaha wax baan ka shaqeyn jiray anigoo yar baan jeclaa xuquuqda aadamaha waxa si loo ilaaliyo waxa sababtuna waxay ahayd marka qoys ahaan aad soo martaan dhibaato iyo tacadiyo kala duwan oo dawladda militariga ah dabcan qoysku ka tirsanayay waxaan ku kornay guri markasta laga sheekeeyo dhib iyo qof wax loo geystay marka qoyskaasan ku soo koray guriga noocaas ahaa taas marka waxay keentay inaan anigoo yar xuquuqda aadamaha waxa anira qof dambe ma doonay in wax lagu sameeyo ama at least inaan dalka Soomaaliland u aagaan kii uu ka go'ayo kale tusaalahan marka uma ban jeedin sawirada qaada iyo xaggan iyo hawshan iyo waxan
marka maalmaan yara baaray inuu jiro qof hawshan qabtay oo kale marka waxaan waayay dad sawir qaadayaa loo kala waxa jireen qolyo sidiina ku shaqeeya saxaafadda photojournalismka iyo qolyaha studio-yada leh photo studioska kuwan baa jiray markaasaan laabtoo sidayno waxaan iyo cid ba hore uma qabanay iska qabanay marka muddo markaan waday 3 sanadooda ayaa dadku waxay soo weydiiyeen tuulo 3 sanadood ka hor aan sawir ka qaado kale Facebook meel heblayn ma tagtay sawirka waxa noqday inaan meeshii baaro dib u tiro markaas ay igu soo dhacdaan malaha waxa loo baahan yahay inaad buug sugu geyso dadkana buugga unta waa kana halka ka eega marka taasa keentay 2015 buug ahaan uga fakaro 2016 inuu soo baxo koobigii hore oo goobo kamida gobolka Sanaag iyo Sool ay ka maqnaayeen haddana mar labaad aan dhulkii tago 2018 aan soo saaro versionkii cusba ama qaybtii dambe cusbayd koobigii labaad kaana 2018 aan soo saaray waa kii dambe imika meelo badan gaarayna runtii ahaa marka kii hore ayay dawladii Silaayo madaxweyne Silaayo isticmaashay oo ahaa hadiyad qaran ku bixiyo kan dambana markii dawladda cusub timid kulmiyaha labaad u yimid madaxweyne Muuse dawladiisu ay ka dambana taabicii dambe qaateen markaas iyaguna dunidii intii kale iyo la sii gaarsiiyay cid kasta oo ka socotay adduunyada ama ambassador ha ahaadaan ama madaxweynayaal ha ahaadaan feeshinada la bixinayo dadka ajaanibka ama safarada la siinayo luqada kale miyaad ku turjunteen wali mise waa luqada Soomaaliga iyo sawirkaas oo de kun macna kale uga gudbinaya markuu qofku arko mise luqada kale uu ku turjumay kii hore wuxuu ahaa qeexitaanku af Soomaali meelaha yar in magaceeda waxay tahay waxa ka dambana waxaan ka dhignay Ingiriisi yaro aad u fudud oo hayn English literature ahaan hayn af Ingiriisi yaro fudud oo dadku ku garan karaan sawirka marka la eego qofka shisheeyaha kale u garanay meesha waxay tahay iyo waxay ahayd ama taariikhdeeda yar meesha kooban aan raacinay marka ka dambe wuxuu lahaa descriptions ama qeexitaan yaro af Ingiriisi oo lahaa marka ka dambana waa ka runtii meelaha gaaro kii hore markaan arkay inuu noqday wax qaranku isticmaalayo hadiyad qarana ayaan ka dambanay in kordhinana deegaanada aan tagin ku kodbadiyo afkanaan ka yara bedelo bal qof shisheeyay inuu akhri karo fahmi karo meeshan waxay tahay markaasaan ka dambas sida ku sameeyay xagga ururinta oo kale waxay u baahan yihiin kaydin aad u fara badan marka hawsha aad bilowday wadaan cili kaaga horeeyna adigu bilowgeedii lahayd marna ma ka fikirtay inaad hal meel ama xarun maxaa la yiraahdaa waxyaabaha Soomaaliland ay quruxdeeda lagu soo bandhigo ama carwo oo kale aad isugu keento waxa soo halka lagu kaydiyo wallahi buugtu waa kaydiga laftirkooda oo inta markasta koobigu yaalo waa qayb kamid ah kaydkii laba koobiyadoodu waxay yaalaan meelaha dawliga ee Soomaaliland tusaale ahaan museumka la yiraahdo Syrian Museum koobi baa yaala marka qofka Syrian Museum booqda wuxuu helayaa koobi kamida kayd marka qof kasto oo shisheeyo Syrian Museum la geeyo uu eegaya museumka dambana dabcan waxaan dhigaynaa kayd kamida qaarkood way noqonayaan in gallery ahaan loo daabaco oo gallery ahaan loo dhigo kuwa taariikhiga oo kale tusaale ahaan imika oo kale meelaha qaarkood baa baaba'ay waxa jirta waxyaalaha cajaa'ibka meel aan sawir ka qaaday baa laga yaabaa imika inaanay jirin oo baabaaday tusaale ahaan geedka wadaamago geedka weyn ee deegaanka wadaamago ka dhacay sawir baan ku hayaa intaanu dhicin ka hor marka sawirkaasi waxa weeye dhaxalka ka hadhay geedkii ka hadhay tusaale ahaan waxa dhici karta meelo kale oo imika taagan ama last stage ki taagan meeshii marxaladii ugu dambeysay taagan afarta kale noqon kara guriyaal bildinada qaar noqon kara waayo waxa jirta dhibta ay leedahay urbanization waxa la yiraahdaa ama magaaleyntu waxay leedahay saameynteedii leedahay meel shalay toolaad wax ku ogeyd baa Britol ganacsada iibinayo dhismo kale uga dhisaya oonkii hore ahay marka kuwaas oo kale waxay noqonayaan waxa dhow tole gallery-ga gala oo sawir ahaan muuqaal ahaan u hada laakiin aan dhismo ahaan u hadhin ama qaar marka horeba imka burbur ku dhow la waayi karayo marka aad goobaha booqanayso kulliba de hawl bay u baahan tahay dadkuna waxay isweydiiyaan inaan yar oo waxaan ku hori Soomaaliland dhalatay oo meel walba waxaan ku hori Soomaaliland cagta soo dhigtay arrimahan maxaa ku fududeeyay wallahi waa su'aal aad u muhiim
dadku inta badan waxay arkaan natiijada marka wax la qabto laakiin inta badan way adag tahay waxa ka dambeeya oo sidaad idinku barnaamijyada markaad soo saaraysan behind the curtains qaar u yihiin ama qofka kamarada hayo oo kale aan loo aragay qofka presenterka ama soo jeediyaha aan la arko waxa jirta hawlo kastoo la qabanayana waxba ka dambeeya waxyaalaha ka dambeeya runtii artkana markay noqoto ama waxyaalaha fanka la xiriira dadkeenu ma fahamsana qiimaha leeyihiin haddana bal dhibka jirta artka ama fanku waa waxa ka turjuma nolosheena oo maanta haddii qofka bini'aadamkii dareen leeyahay dareenkaas nooc doona ha noqdo muruga ha noqdo jacayl ha noqdo xiisa ha noqdo gobonimo ha noqdo wadaniyad ha noqdo waxaasoo dhan wax lagu gudbiyaa gabay ama hees oo shucuurta qofka bini'aadamka shucuurtiisa uu ku bedelo artkuna waa lamid waxyaalahaasoo dunida kale qiimaha ugu badan ka hela dadkeena kama helaan oo dadkeenu qiimo badan art kama saaraan waxaan uga daleeyay waxa weeyaan laguma bixiyo funding ama lacag lama geliyo tusaale ahaan markaad leedahay sawir baan intay meeliblayn inta sawir baan ka soo qaadaya waxa laga yaabaa inaad qof aanu waxba lacag kugu siinin laakiin haddaad mawduuc kale kala hadli lahayd in lacag lagu siin lahaa waxa laga yaabaa waxaan markaan ururinay haddaan oran lahaa waxaan dabcan waa baan arkay inaan la siinaynin laakiin haddaan oran lahaa waxaan doonayay inaan guursado ma la taageeraya waxa laga yaabaa 10 fujaan ama dahab ama waxa ma gaari la keenay la oran inantu guursanaysaa inaga dhisa marka artka lama fangarayo marka waxa keentay in aan anigu midna 5 sano ku qaato midna in total markaan isku celiyay 8 sanadood ku qaato waxay ahayd waan shaqo tagayay markaan shaqo tago mushaharkaygii ayaan dib u gelinay anigu meelahan tagayo inaan ku safro inaan ku tago inaan meeshaan tagay dadkan u tagayo ee ila shaqeynay shaahooda siiyo inaan meeshaan tagayo gaariga dadka ila saaran meesha seexanayaan iyo waxa ila cunayaan aan anigu bixiyo waayo way helbay yihiin marka kharash waxa galay aan la xisaabin karin waxaan ahayd wax markaan meel kasta tagayo aan in bixinay ma ahayn wax markaliya lacag intaan ururiyay macna $100,000 markaliya galiye ma ahayn marka waxay maalinba meel taas keentay time ko inuu dheeraado aan wax ku ururinay Somaliland xukuumadeeda wax abaal marina ama tankii hadii hawsha culays ka leh si fiican ma kala kulantay wallahi dadkeena muwaadiniinta reer Soomaaliya meel kasta ay joogaan waa shidaalkan ku shaqeeyo oo qofku markuu ku dhaw wax wanaagsan baad inoo qabatay ama wax dalkeena u baahnaa baad qabatay waa dhiirigelin halka ugu sareysa laakiin wax national award ama wax qaranku maanta uu yiri waxaasan kugu dhiirigelinayna ma jirto ma garanayo dadkeenu markay dhintaan bal xusaaye wali ma jirto taana u helaysaa way anigu qudhaydani waxaan kamid ahay dadka waxyaabaha qabatay ahmiyadda ay u muuqato runtii aad baan ugu faraxsanahay caawinayna sar fadhino iga waramaysa waxyaabaha qabatay arinta dhinaca kamaradaha iyo skillskan sawirka qaaditaankiisa iyaduna waxay baan tahay qof kale oo dad badan dadka in yar ay fahansan tahay aad iyo aad xaqad xirfadaha ku baratay wallahi su'aashaas waa su'aalo interesting inta badan dadku ima weydiiyaan ba iskuul maan galin oo Somaliland ma laha ba iskuul kamarad lagu dhigto waxay ahayd wax nafahaan oo nusbaray self ah oo naftaan oo ku tababaray maadaama shaqada laabta u sii daayay waxay ahayd inaan dhaar shaqada waxay ku suuragelayso samee waxa xusid mudan runtii waxaan ahay dadka aan iloobin abaalka loo galo aadna u ixtiraamo abaalka in anigoo kamarad yar haysta oo taanimika haysto ka yar waqtiyada kamida 2014 aan idhaahdo bishii May dad qurba joog ah oo la xiriiray nin muwaadin ah oo sawir qaada ah oo la yiraahdo Istaahir uu sheegay ku yiri gabadhaas dalkii joogta iyada hawl noocaas wada markaas ay yiraahdeen waxaan siinaynaa award dhiirigelin ah marka uu ku yiri uma baahna award certificate loo diray waxa u baahan kamarad loo diro marka in ay kamarada igu soo support gareeyeen first camera igu soo support gareeyeen
markii dambana digital kamaradihii kale ee ay kolba shaqada ku sii qurux badnaanaysay inaan anigu sii kordhiyey artkuna waa lagu kala duwan yahay mar waxaa jirta qofka baniaadamkii angles bay dadku wax ka eegaan dadka qaarkood haddii kamarad laynoo dhibay labadeenno imika fiilka tagno waxa laga yaabaa waxyaalaha qaar in adiga kusoo jiitaan anigana waxa laga yaabaa wax ka duwanba waxa inay soo jiitaan marka waxyaalaha ku soo jiidanaya laftirkooda hadday tahay landscape then waxaad eegaysaa skillska landscape-ka kusoo baxaya kamarada settingka landscape-ka kusoo baxaya hadday tahay portraits ama sawirada caadiga dadka laga qaado kuwa kusoo baxaya marka dambe waxay noqonaysaa xoolo dirqi ma waaye ma maqal jirtay marka xoog baan isku baray culays fara badanna iskuma saaro oo mararka qaarkood dadka qaar waxaa jira inay laabta shayga u sii daayaan inay doonayaan hadhowto shayga mooyaane inaan wax kale noloshooda qaban marka taana ismaan sii siininoo jaamacadaan dhigtay 3 jaamacadood baan dhigtay markii koowaad jaamacad golis oo ka dhigtay cilmiga la yiraahdo waxa la yiraahdaa cadaaladda dambiilaha iyo cilmi sayniska booliiska criminal justice and police iyo jaamacadda new generation oo ka dhigtay international relations and politics xiriirka caalamiga ee siyaasadda haddana jaamacadda Hargeysa master u tagay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda markaa waxaan u socdaa dariiq kale oo ka duwan kana in mustaqbalka dhow insha Allah siyaasadii waxaan galo maadaama iskuul u fadhiistay waqtina ku qaatay barashadeedii marka man focus fara badan siinaynin technically inaan u dhex galo caalamka technology-da iyo kamaradaha la sii xiriiraha waxaad sheegtay inaad siyaasad kulli halka u socoto siyaasaddu dowrka had iyo goor haweenku Somaliland mid muuqda maaha caqabado badanna way iska jiraan oo qaar badanna loo garaabayo qaar badanna ay garawshiyo lahayn halka ku socotana dee kulli waa loo sahan tagaa reerku guurayo inaad meeshaad ku socoto dee inaad meelaad sii qodax tirtay tahay maxaa kaaga muuqda siyaasadda Somaliland xagee maxaad saad soo aragtaa bal ka soo qaad 10 sano kadib nuur al-haadi oo siyaasadda wallahi mustaqbalku ma xuma waayo waxaad moodaa dadku inay imka soo fahmayaan baahida loo qabo in la helo dumar golayaasha ku jira ama ha noqdo golaha wasiirada ama ha noqdo golayaasha sharci dejinta ha noqdaan inkastoo nasiib daro ay doorkii dhaweed ka hadheen haweenku golaha wakiilada ka hadheen taasina runtii ahayd caqabad kale oo hadda golaha ka jirta waayo noloshu rag iyo dumar way isku lamaanta haddii waxaanan aaminsanahay haddii dumar imika golihii imika soo bixi lahaayeen inuu goluhu hadda ka dardar badnaan lahaa oo kala duwanaanshaha ilaahay ka dhigay ragga iyo dumarka wuxuu ka dhigay iskab ayuu ka dhigay inuu isku lamaaneeyo ilaahay oo aayadda quraanka waxa la litaskunu ilayha si aad ugu xasishaan marka la leeyahay dumarka laga hadlayo marka mustaqbalku ma xuma dadka iyaga sidaydoo kale iskuul u tagayna dabcan waxaan isleeyahay way ka fursad badanayaan dadka kale aan iskuul u tagin waayo siyaasadda qofka waxa ku sii haya waxa weeye fahamka kuma sii hayo kaliya inuu qofku galo oo dad baa jira siyaasadda ku dhexsaaqada laakiin qofka siyaasiga waxa macnaha u yeela waxa weeyaan fahamku fahamsan yahay siyaasadda meesha taala waxaanan filayaa maadaama aan Somaliland gudaheeda ku noolaa intaas oo dhan noloshayda oo dhan maadaama aan si dhow ula socday siyaasadaha xisbiyada dhexdooda iyo politicska jira hadda kulmiye 2010 anigoo yarba waxaan ka mid ahaa dadkii u campaign gareynayay ololaha ugu jiray waana meeshii ugu horeysay igu khasabteen inaa imika wadaga fahmay baashu soo shaqaystay iskuul u galo soo dhigo kadib soo noqo kulmiye lahayd kulmiye taageersanaa extreme kulmiye waliba marka waxay ahayd barnaamij ma waqtigaas sameynay loo oran jiray operation Silayo for presidency oo dhahnay Silayo barnaamij aan doonayno inuu ku guuleyso campaignkiisa ka mid ahayd anaga dad badan oo dhalinyaro ahaa noona ahayd steptii koobaad iyo silaankii koobaadeen ku soo kornay fahamka siyaasadeed iyo siyaasadda Somaliland oo inta badan xulasho u badan oon u badnayn doorasho u badnayn waayo reer way garanayaan qofka meesha geysanayaan oo selection
qofka codeeyaha ee voterki kiina uu garanaya cid uu dooranayo marka sometimes waxa la waa selection halka selection kale way marayna adigu inan baatay ma sha Allah haddaad maanta tiraahdo baarlamaan u carar yaa ku dooranaya adiga su'aal aad muhiim kalsoonidan runtii haysta waxa weeyaan malaha waxa buu wacnaan lahayd barna inaan qofka la oran gobol hebel laga soo doorto waxaan aaminsanahay hadii Soomaaliland laga dooran lahayn la yacday lahaa waayo shaqooyinkan imika qabanaya wax shaqooyin ii sahlay inaan fahmo nolosha dadka reer Soomaaliland dadka degmada degan dadka gobolka degan iyo dadka caasimadaha la isugu wada yimid dadkii degmooyinka ka soo guuray gobolada ka soo guuray ay degan yihiin marka waxaan isku tiriyaa dadka fahamsan nolosha dadka reer Soomaaliland min bari ilaa galbeed on looga sheekeyn karin qofka degan tukaraq degan noloshiisa caynka u eg tahay iyo qofka degan xariirada oo xadka Itoobiya iyo awdal ah on ka soo shaqeeyay dadka degan noloshooda iyo inta u dhaxaysaba dadka degan iyo haweenka degan noloshooda say tahay marka waxaan isku tiriyaa inaan fahamsanahay nolosha dhalinyarada hablaha iyo haweenka iyo dhalinyarada ragga ee Soomaaliland marka waxaan soo lahaa maadaama aad wixii kale ee siyaasadda kale ee ay iskuulada lagu dhigto ee macna ah dunida kale siday waxay politics u taqaano een ahayn waxa local context ama xaaladda dalkeena daadaga ah sida loo yaqaan marka waxaan isku tiriyaa in aan at least hadaan imaado isku day lahaa bal sawir ka duwan waxa imka la arkayo inaan bal ku matalo meeshaas oo sawirka ah inuu qofku aaminsan yahay tuuladiisa iyo in uu taas sidoo kale uu yahay loyal cidii uu ogyahay selection inay ku keentay meesha inay election ku keenin salahan iyo in loo baahan yahay qof siyaasad fiyow oo ahayn siyaasadan la isku dhigmiiranayo exploitation-ka oo ah shalay baad xildhibaan ii dooratay maanta anna markaan qolaha fadhiisto waa inaan baas gareeyo barnaamij anigu shaah ii saaran yahay ee ay tahay shalay baad ii dooratay waxaan meesha u tagayaa duruuftaadu inay wax iska bedelaan marka waxaas leeyahay waxaas ha exactly waxaynu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka laba su'aalood muhiim ah ku hay inta dul maraysay Soomaaliland maraysay ee aad miyi iyo magaalo goob dalxiis bad iyo berri inta baad joogtay meeshii saamaynta kugu yeelatay aad ilaa weyday ama soo dhaweyn dad kala kulantay ha noqoto ama maxaa la yiraahdaa quruxda meesha oo sidoo kale miskiin degtay ha noqoto waa maxalkii dadkeena meel habeen dhawdan meel ka hadlayay London ayaa waxaan lahaa dadkeena waxa ugu gobanimo badan kuwa ugu haynta yar leh maalin baan u tagnay dad dhibaataysan xilliyada abaaraha on anagu islahayn idinku xaaladooda soo gudbiya ama idinku wax yar intaad iska jartaan mushaharkiina siiya markaan u tagnay fadhiisanay ay sharaab noo direen waliba sharaabkan dukaanka laga soo iibiyay daasadaha ku jira ay noo soo qabteen oo martida loo dhigay ha marka aniga inaan aag fadhiday labadayadba si gaaran u murugoonay waxaan dadkan waxa ma haystaan laakiin iyagoo haddana maran bay isku dayeen inay na sooraan waxba haysan oo inagu doonayno in xaaladda inta waraysnaa in dadka u gudbino waxa ku tusaysa dadka bini aadamka ah ee deegaanadeena degan meelahan dee magaalooyinkan dadkii dhaqankoodii isku bedelay aan ahayn wali dhaqankoodii sii haysta inay ka fakarayaan gobonimada soo dhaweynta ay ku lamaantay wali xaaladahooda meel baa jirtaan dhawaan tagay sanadkii imika dhaafay oo wagar leedaa buuraha saaxil bay ku jirtaa waa buur aad u cajiiba dadka in yarun baa imika tago qolyaha shirkadaha dalxiis ku geeyaan qolo culimo abaa degan waa dhul haddaad horta saan ku tagnay baaba adkayd ba waxaanu lugaynaynay buurta hoosteeda ilaa buurta korkeeda intaanu koraynay 17 kilomitir halku gaariguna dhigay iyo halkaanu buurta kor u fuulaynay waxa u dhaxeeyay 17 kilomitir oo lug ah masaafo dheer ha saddex cisho markaan isku gageynay waxaan soconay 51 kilomitir
ayaan soconay 3 days maalin aan koraynay maalin aan dhexda maraynay iyo maalin aan gaariga ku soo noqonaynay intaan gaariga ku soo noqonaynay 3 cisho isla noqotay buurtaas waa buur aad u cajiib ah haddaad kortood gashan waxaad soconaysaa ma doonayba inaan noqdo 3 cisho joognay anteen muu jirin dadka caadi baan uga go'nay horta waa sida ugu wanaagsan in telefoonada iyo horta waxaan iska dhigaa lagu waayo deetana waa nala waayay laakiin waxnu lagu anagu ku lunno ayaanu helnay sax marka dhul aad u cajiiba waxyaalaha aniga maskaxdayda mar walba geliya ka fakarkaanoo ay ugu dambeysay 2 sanadood ka hor meelaha qaarkood ama sanad ka hor markaan habeenkii sariirta saa u jiifsado maskaxdayda dib sawirada u celiso waxa kamid ah goobaha afaarta qaar kamid ah oo nisraahdo dadkii waqtiga bariga deganaa dhagaxa xardhan kalarka ay mariyay u sameeyeen talow marka qaarkood waxaan gaaray level aan idhaahdo alla ilaahayo bal manaamigu tus dhagaxa waxay ka sameeyeen horta arintaas waa marinji wax u eeg baa mise waa wax dhagaxa oo qorana badankoodu waa rinji waa rinji qaarkood ay yara qodan laakiin badankoodu waa rinjiyo kala duwan rinji cadaana mid madow ah iyo mid cas marka rinjiyo aad u cajiib ah weeyaan oo markaad joogto aad isweydiinayso subxaanallah dadkii ilaahay halkaa dhigay civilizationka ma halka ka gaareen xadaarad waxaasay ku reebeen taariikhdoodii iyo noloshoodii taas waxay aniga igu abuurtaa nolosheenan casriga ah waxaanaynu ka tegayno la noolaan mayne waxaanaynu ka tegayno sidaynu raadkeenu ka tegayno siduu sii waari doonaa questionku why thousands of years bay kuwa ka tegeen dhagaxan sidan ah imku inagu ina soo gaaray sometimes waxaan u wararka marka qaar waxaan u warwaraa generations inaga dambeeyay ma u ilaalin doonaa waxan inay iyagu soo gaaraan oo su'aasha culuuska ugu weyn igu haysta aniga kamid war dhagaxan yaan la jumin dhagaxan yaan la qaadin dibna ka jiraan waxa weeyaan dad baa imika soo baxay burcad ah haddaad maqli jirtay burcad badeed iyo burcad kuwan kale maxay ahayd baabuurta meelaha u istaagi jiray waxa imika waxa soo baxday burcad u socota taariikhaha oo waxa kaliya ka doonaya tahay inay dahab la baxaan ay bahashan dadka lagu falay kale maxay ahayd mercury la baxaan balaayo la baxaan xabaalihii qodaya xabaalihii boobaya meelihii faqanaya mid walba uu doonayo in uu wax yaro imika adduun yar laga helaya u baabiinayo taariikh dhan oo umadeed oo 6,000 sanadood ama 10,000 sanadood ciise ka horeysay oo intaasoo dhan ku jirtay kaydka noocaas inay meesha uga baxdo arrin yaroo qof yaroo hunguri shakhsi ah arrintan baa kaaga sheekeynaya halkan town hallkan magaalada Sheffield dowladda hoose ayaanu geynay hadii goor xildhibaanada xaga nooga yimaado Somaliland ama golo deegaan ama baarlamaan hall weyn baa ku yaala waxa ku sawiran Lord Mayorkii ugu horeeyay 1800 sawirkiisii muddadii waayay kii ku xigay saasay u taxayeen ilaa maanta 2022 marka taariikhda in la ururiyo waa muhiim adiguna hawsha hayso ilaahay ku galo hawl aad muhiim ah oo dadka in yari ay fahamsan tahay way runtii marka haniyad jabin abaalkaagan wad helaysaa insha Allah tawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku wareysanayay Nuur Alhaadi Cali Banfas oo ku sugan magaalada Sheffield ee cariga wadankan Ingiriiska tan iyo intaaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa aniga Yaasiin Jees oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh